dhacdooyinka qaar waa kuwa wata hirar iyo mowjado xambaarsan murugo iyo dareen wiiqaya qalbiga qofka bini'aadanka mar kalena waa kuwa u qaadan waaya ama ka ku noqda badiba aadamaha ha yeeshee qoraalka iyo qadarteele ayaa wax wal oo aadamuhu rumaysan karin suurtagal ka dhigta barnaamijka hiil walaal u daneeyaha dadka jilicsan oo isagu mar walba u taagan taageerida iyo garab istaaga dadka jilicsan ee aanu codkoodu meel fog gaadhayn waxa uu markan booqday Faarax Maxamed Faarax oo ah wiil da'yar oo 10 sano jir ah qadarta allana asiibtay ahna agoon aan aabba lahayn noloshiisana ku soo qaatay marxalado aad u kala fog oo ah lab iyo dhadig Faarax yare waxa uu ku dhashay isagoo aan lahayn xubinta taranka oo ay dahaaran tahay hooyadii iyo dhammaanba qoyskiisuna waxay u maleeyeen inay gabadhi u dhalatay waxa loo baxshay hani waxaana loo koriyay loona xanaaneeyay sidii gabadh oo kale waxa loo xidhi jiray dreyska ama dharka ay dumarku xidhaan maadaama qoyskiisu ay u maleynayeen gabadh sidoo kale waxa uu lahaa timaha dhaadheer ee haweenka xaafadana waxa uu ahaa gabadh la wada jecel yahay maadaama qoyskaasi ay u badnaayeen wiilal ha yeeshee markii uu gaadhay da'da 5 sano jir ayaa waxay hooyadii u qaaday cusbitaal adeegyada baadhista iyo shaybaadhka ugu fuliyay si bilaasha maadaama aanay haysanin wax lacaga isbeddelka ku yimid nolosha Faarax waxa uu la kowsaday cusbitaalkaas maadaama dhakhtarkii uu hooyo Ayaan Ibraahim Nuur oo ah hooyada dhashay Faarax yare u cadeeyay inaanay gabadh ahayn ee uu yahay wiil una baahan yahay qalliin ha yeeshee aan dalka gudihiisa waxba lagaga qaban karin loona baahan yahay in dalka dibaddiisa loo qaado si qalliin loogu sameeyo maalinka wixii ka dambeeyay waxa isbedeshay noloshii gabadhnimada ee Faarax waxaana laga bedelay magacii hani waxaana loo baxshay magaca haatan ee Faarax waxa laga xiray timihii waxaana laga bedelay dreyskii iyo dharkii haweenka ee markii hore loo xidhi jiray Faarax yare waxa uu naawilayaa in loo qaado dalka dibaddiisa laguna sameeyo qalliin guulaysta ha yeeshee waxa hortaagan caqabad hamiga daayartan ka dhigaysa tuhumaaga waana jeeb la'aanta qoyskiisa oo aan iyagu awoodin dhaqaale ay ku geeyaan dhakhtar dalka dibaddiisa ah ha yeeshee Faarax yare waa daayar Soomaaliyeed oo hiil iyo gacan qabasho uga baahan muxsiniinta Soomaaliyeed ee ku sugan daafaha dunida waatan hooyo Ayaan Ibraahim Nuur Wacays oo ka waramaysa xaaladda wiilkeeda caqabadihii isbeddelka ee ku yimi waxayna rajo buuxda oo hooyanimo ka qabtaa inay mar uun geyso dhakhtar dibadeed si ay u hagaajiso mustaqbalka wiilkeeda yar ilmahani aan horta reexeelay baana tuulam iyaa qoon ku wada ka dhintay askariga Soomaaliya haddii waa agoon oo dhintay askari ma furunta jooji فرنت مركو كي يدينا بربع وصلنا وصوا عينا كم كم ونجينا كوتشي فرنتين وحبون كي لا مع مشارو مهي لا كذا كبعدين مركو فرنتين عاكي مسكنا هي كي أنا وش قيسري تولي هاي ونسى حاجة بيحجري حاجة بيح أنا نسى حاجة بحي إسلام مرتي يسوي تإنه ما بدنا ما نقول لا إنا نقول أبوجري قبل أن نحس أسا كمان سياق إنا نقول ويدات إنا نقول ويدات والله إنه ويقول هاي وين سعرته سديد بعد ما في سنة سامح معنا سنوات كيجر. هذا مثلا لسه حاجة بحس رام بأي شيء إن ما نقول حركة إن ما حركة حركة كينة هذا. أين حبلو لاي. لكن نمدو لاي. أضوان قادم الله على اختلاف من هالبنات اللي يحبيهم قاعدين العالم كمبيوتر بلاش بيقولين اخترت بلاش بيقولين ويعيش يا جماعة أنا سلمان لأنا بدو قبل كرتين يجري هذا تعبانين. سيدي ما فسر عيش لحياتي. مركب مو كوك العادي إن ويل يكبر كوياه. وإن كذي بيقول كمبيوتر زي ونبي كوياه. وإن بيقول درك كبدل ورود عيني ما كبدل. كور أنت أنا دخترك إن كقل إن بالشر واحد فاهم قصيصة إن نحن بدو سيتي. درك حرين شيء كرتين لي سوكا بس ده هاي. درك بلان نشري. المرأة هذا فرح بنا بورده يلالك. نضح ولا نشري هنا. إنا كقوه ريحان بعد. يدنا هنا دولة. يدنا هنا ولا جحان هنا كلو ولا نشري. كبعد يقول ما كنت بين وقاعدين المهني ونينا نحين إنا نعجة هي. اللي يعدي وين هي. ما قعنوا ما بيحنا أنا ضعفرت معش تمع الواد وقول سنة.
ولي وقدور كون ها وجه علوم الله يغيري يغا ودادده قران ساري كبعدين الناس تنبل يقول ما بقى انا المهندسه حبلان عاد بان جعل الله يغيرها بعدين كي دكتور المدعو بخي هو يدينا ويدعيسي دركي ولا بدلي ما ولا بدلي اني والله نقضي ولا رب والله ماي waxa igu soo maray wasiirka xaglad soo siiyay ninka leeyahay wasiirka caafimaadka igu soo maray liyada looga soo sheegay magaalada Tuqushiye in laga buro iyo wimday soo wiiga qaaday waxba qabanayna xabeeyna kabacdiga sidii baan darasay Soomaaliland 2 sano yaan ku jiray baan gurigii reerkay waxay wada buxo guriga qol karaaba kaga jira yaalkaas waxay iga dar ma shaqeystaan كربع قرية ومنها عذاري أختي وعاويان بيجر أروح حصل ما حي قدر هو إلي حي قال ما يستانا دان النقم وين أنا النقم حيبت كون نقم قصد من نقم صح ألقى حدا مسي تشوف رأيه المحلفتي سبحان الله كانت إن والله واحد ورد بحني وقونا قصدي صار إنك حالتي سعاف المات إنك وسيل المعنى هذا لابس حنوضو هذا لابس هذا لابس markasta kaadiisa meelaya waxa kale oo dheer inaan kiray taaliga 10 jirka wax barashadiisii meel macalimiinta iskuul mitin wala soo daayeen in kan bala mustaqbal muraad la ay xunigu iyo goor masdar kale iga dhigaya ay markasta in kala dad weydiisay warasto qoonaya nin kasta oo yimaadina kasta yimaada tiris qaay wax ma qaayay oo wuxuu ku qabanayo isqaybinayna yani in si rag oo laga dhigo awgeed ay doonayaan walow aanay haynin wax adduuna nolosha caruurteeda oo 8 ay la dhaadhacayso haddana rajadeedu waa meel waxayna ummadda muxsiniinta ee Soomaaliyeed ka codsanaysaa inay soo caawiyaan maadaama lagu jiro bishii barakada iyo khayrka badneyd ee Ramadaan كمدحهم كعطسانيا تريد الميرج وحي وحداي يوحي عابا وحي وغلالا المعاسين وقلين كيسو فدودي هاي خرش لون بحيه أنا نوحين إنتاج نيجا عابا إن شاء الله ولا صح ولا ودانيها dadka jilicsan hiil walaal